Barsaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame ayaa saaka ka goostay Somalilan sida ay wararku sheegeen. Waxaana la sheegay inuu tegay degmada Fiqifuli oo koonfurta Sanaag kaga beegan Hilaadii ilaa 60 kiiloomitir, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka SSC Khaatimo. Sidoo kale waxa uu la goostay gaadiid kala duwan oo uu watay. Goosashada barsaabka ayaa kusoo beegmaysa xilli xaaladda gobolka Sanaag aanay deganayn oo beelaha halkaadee kala shaki fara badan uu soo dhexgalay isagoo qof kastaba hubkiisa sitaa. Barsaabka ayaa sheegay inuu shacabkiisa Khaatimo State la mowqif yahay dadkiisana uu dhinac ka raacayo. Barsaabka waxa kale uu sheegay inay Somalilan qabiil noqotay sidaas darteedna uu iskaga yimid dowladdiisa iyo maamulkiisa iyo dib u dhiska dadkiisa iyo dalkiisaba magaranaasa ka qayb qaadanayo. Wixii wararay intaa soo kordha halkan kala socda isaga ugu sareeyay isagiina waa joogaa maanta inta hadhay ee wali meelaha sii leefleefaysa wax sii eegaysa war hooyaanu tareenku ka buuxsan wali wadada waa furan tahay hadda ceer gaabo waxa dhici doonta mar wadadu xidhmayso mar xaaladdu sida isu bedelayso mar xitaa boorame iyo jigjiga aan la mari karayn war hooy wadadu waa furan tahay waana idin soo dhaweynaynaa waana idin baahanay kale inuu hogaamiyo dadkiina la dareeno sidaas annaguna buug baanu qoraynaayo SSC gobolka Sanaag cid waliba wixii ay gashato buug baanu ugu qoraynaa say hadhow tamnaheeda ay nooga gurato jaaca waa ku haynaa adigana inaad lambar 1 noo tahay hadhowna lambar 1 baad xaggeeya ka noqonaysaa degmada Fiqifuli insha Allah billahi kariim